بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada shabakada haqabeel.com ee laga barto cilmiga multimedia. Sidaad ka warhayseen waxa inoo soo socday casharo taxane ah oo aynu ku baranaynay advanced video editing. Videogan hadda aan duubaynaa wuxuu ka mid yahay videoyadaasi aynu ku baranaynay video editing-ka. maanta waxaanu ka hadli doonaa qaabka loo sameeyo sidaan isku ag fadhino aniga iyo ninkan odayga saaxiibkaya. waxaan jecelahay sidee ku suurtagelaysaa inaan weydiiyo inaynu qaabkan oo kale isku soo hor fadhiisano. su-aashaasina waxaa inooga jawaabayaa saaxiibkeen. kusoo dhawow. okay, waa su-aal wanaagsan. haddii aan isku dayo inaan su-aashaadaasi kaaga jawaabo, waxay ku suurtagelaysaa inaynu qaabkan oo kale isku hor fadhiisano inagoo isticmaalayna qaab la yidhaahdo clone effect. waxaa jirta qaabab badan oo loo samayn karayo qaabkan aan isku hor fadhino oo kale, laakiin waxaa muhiim ah 3 shuruudood baa muhiim ah. ugu horeyn waxaa muhiim ah inay kamaradaadu fixed ahaato oo aanay dhaqdhaqaaqin. qodobka labaad ayaa isna wuxuu yahay inaan socodka controlno videogan oo kale markaynu duubayno. socodka videoga dhexdiisa inaynu controlno, taasina waa qodob kale oo muhiim ah. sidoo kale waxaa jira qaab la yiraahdo masking oo inoo saamaxaya marka la isku keenayo videoyada doonaysid inaad isku keento ayaa waxa la isticmaalaa masking oo dhinaca kale ayaa buu qarinaya. marka saddexdaasi qodob ayaa muhiim ah. qaabka loo sameeyana daawasho wanaagsan. bismillahi raxmaani raxiim. waa sida uu faas sheegay kaamirada horta marka hore waa fixed, way taagnaanaysaa, lama dhaqdhaqaajinayo. mar haddaan la dhaqdhaqaajinayno qofka waxaa la sawirayaa laba dhinac oo ah dhanka hadda uu fadhiyo oo ah dhanka midig iyo dhanka bidix, iyadoo aan kaamirada waxba aan la joojin. waa ka hadda wuxuu fadhiyaa midigtii, weli iyadoo aan kaamirada la joojin ayuu soo guurayaa, haddana wuu is hagaajinayaa, calaamad buu samaysanaya, kadibna wuu bilaabayaa. markaa kadib sawirka ama muuqaalka ayaa wax loo qaybinaya 2 qaybood oo ah bidix iyo midig. haddaba sawiradii waa kuwa 2 u qaybinay, waan is hoos dhignay. tani waa bidixdii, tani waa midigtii, ama left and right way kala noqdeen. labadaas la isku dhex gelin oo la isticmaalno waxa la yiraahdo mask. si aan mask u isticmaalno waxaan sameynaynaa double click markaa sameyso kadib waxaad tagaysaa effect, all tag, waxaan raadinaynaa waa Borders effects. soo qaad, double click dheh, waxaad tagtaa customize filter, kadibna advanced tag, kadib waxaad iska masaxdaa textiga uma baahnin. waxaad tuujisaa irbadda si aad maskiga u isticmaasho, kadib waxaad tagtaa fill, kalarkaad doonaysa waad dooran karaysaa oo adiga aad doonaysa inaad kaga saarto. aniga waxaan qaatay greenka khafiifka ah. okay baan niri. kadib irbaddii waxaad la tagtaa fuaad 2 ama su-aasha ka jawaabi doono, ama markii sidaad soo aragtay su-aasha ka jawaabay, ama dhanka right ka fadhiya. 2 u qaybay marka ilaa halkaa 2. marka qaybta midigta waa fuaadkii, qaybta kalena waa fuaad labaad baa laga doonaya inuu soo galo. sida u soo geli lahaa waa inaad samaystaa systemkeedii ahaa mask ayuu kusoo geli karaya. okay, qaybna waa green, qaybna waa isagii. kadib waxaad tidhahdaa apply. after that kadib waxaad tagtaa toos mask and chroma key. hadba siduu kaaga bixi karo oo kugu imaan karo oo suurtagal ayaad samaysaa. halada apply. qaybta greenka kama bixi karayo sababtoo ah qaybtan waa full green, qaybtan waa light green. marka waa inaad u doontaa qayb light green ah. sida lagu doonayaa tuuji halkaa, qaybtaas light green ah. waa 2 fuaad baa soo baxay. xariijintii u dhaxaysay
iyo kala qaybinta ma jiraan eeg marka videogan hadda aan duubaynaa wuxuu ka mid yahay videoyadaasi aynu okay kadibna haddana waxaan eegaynaa un mar hore bacdaan hore usoo aragna waxaan eegaynaa Fu'aadkii sharaxayay qaybtiisii ugu dambeysay ama inuu isagii sax yahay in kale saddex shuruudood baa muhiim ah ugu horeyn waxaa muhiim ah inay kamaradaadu fixed ahaato that's all kadibna halka uu ku dhammaanayo baad eegaysaa sidaas ayuu maaskigaagii ku shaqeeyey ama labadii qofood ama isla adigii aada laba idinkoo ah isla fadhiya oo wada sheekaysanaya ayay ku suurtagelaysaa waan jiraan maxamed cabdullaahi maadey oo idin leh salaamu ullahi calaykum iyo cashirka xiga